بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درس كلام حكب الأبنية سورة الفاتحة بلوجينا. سورة الفاتحة مقعية دورة إلا هذا سورة الفاتحة والله إلى هذا إلى أين كتاب كريم كابك بالعظم مثل اللبات أم الكتاب نوالها أم الكتاب كتاب القرآن هو يدي أو كتاب القرآن وحيابها وكهد الله الصفة فاصلة وكهد الله أي يد الصاقة قيب وحي كهذا شاء القرآن إلهي التوحيد كيس يتفوين كيسي أمانته ولا ونك وإكهد ليس سورة قيبنا وحا إكهد ليس ذاتك ونكسنا الصالحين قرآنك أي قيب كهذا شاء صفة فاصلة وكهذا شاء يدنا ويساقه يدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه قيب كم إذا قرآنك وحي كهذا ليس dadka liita ee guuldarradu ay ku dhacday iyagana way ishaaray waxyaabaha uu qur-aanku ka hadlo in badan uu faahfaahiyo si guud bay u tilmaantay alxamduna waa la yidhaahdaa suuraddan oo dee adiga arkaya alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay uu ku bilaabay waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu shifaa waa suuradda caafimaadka qofka cudurka hayaa lagu akriyaa sida ka sugan asxaabtii nabiga ridwaanullaahi calayhim qofku kay ku akhriyeen ilaahay baa caafimaadiyey dabeedna nabiga calayhi salaatu wasalaam mushqaayad la soo siiyey bay ula yimaadeen oo aanay ahayd waana u baaskareeyey nebigu amaba waa fasaxo ista waxbuu ka qaatay marka qofka bukana waa lagu akriyaa shaafiya iyo suuratu shifaab waa la ydhaha suuraddu fadli bay leedahay fadli ayay leedahay axaadiis badan baa ka warramaysa fadligeeda waxaa ka mid a xadiidka warinayo abi saciid ibn mucalla allah ka raali noqde nabigaanu inuu naxariistii nabadgelyo kuurkiisa ahaata markaa wuxuu igu yidhi bu inta rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaan ku bari doonaa suuradda qur'aanka kariimka ah suuradda qur'aanka ugu weyn intaynaan masjidkaba ka bixin markii uu doonay inuu ka baxo ayaan xusuusiyey bu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi bu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmasaani والقرآن العظيم الذي أوتيته تطلع آيات سؤال نغنغضة ويان سورة سيوى الحمد لله رب العالمين وقرآن كوين الليسيين وعكرا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كقصغا كاين هربا أصوى إشارنين أصوى المعنى إلى أصحاب القاركود انت كو أخريين قصبك وهذا الدرن إلهي وعافية مركي الله شيئا والنبي والسحابي الله الله وكل وما كان يدريه أنها رقية حاول بيتيين عاصماتها إلهي ما وحكو عاصماتية مركي تقول لي يدوى فضلها إلا هذه الصورة تذكي أن أنت بضاني نوي حفظتين مركي قفك حنونك بحشك إياها والضريني وحرنوك آخر السنة إلهي دمكيس يدا قرآن كودن عاصمات القلوب تأيي شركة بوية أتنسي قارة دليل كاسوغو صاروري سورة وحفظ كبير قلت المع عليه السلام قطها ثلاثة أكو آخرين فاتحة الكتاب أما بأم القرآن قرآن كهو يدي سورتنا ثلاثة تاسي إن أنا دم يسترمين أما أنا أستحين وحرمتي فضل ويلي يضنع وصورتنا أي لا رسول كوح عليه الصلاة والسلام حديث كان وحورني اسم مسلمة إنه إلهي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صلاة وينو قيبسمتها أنا جي أطون كيف لوا أينا أبو قيبسمت أما فاتحة أطون كيف وحا أوليه وحي أسؤاشه وأنك أقبل دونا
wixii ugu ammaanana anaa ka guddoomaya marka addoonku yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa wuxuu idhaahdaa xamadanii cabdi addoonkaygi wuu imahadiyey marka alla wuu ka guddoomaya kolkuu qofku idhaahdo alraxmaani alraxiim alla wuxuu leeyahay asnaa calaya cabdi addoonkaygi waa ammaanay markuu qofku idhaahdo maaliki yawmiddiin alla waxa ugu jawaabaya haddana majadanii cabdi addoonkaygi waa isharifay oo wuu imaamuusay kolka addoonkii uu idhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alla wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al intani anigii addoonkay noo qaybsan isagu wixii uu weydiiyeyna wuu leeyahay ilaahu adaanu ku caabudaynaa cibaadadaa ka aqbalay ilaahu adaanu gargaar kaa doonaynaa waana siin doonaa kolkuu qofku idhaahdo ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim غayri almaqduubi calayhim wala addaaliin kolkuu qofku idhaahdo alla wuxuu ugu jawaabayaa haadaa licabdii walicabdii maa sa'al intaa addoonkaygaa iska leh addoonkayguna wixii uu su'aalay ayuu iska leeyahay haddaba kolka aad aragtay dee in sidaa ilaahay uu kugu jawaabayo adigoo faatixadii akhriyaya ma habboona in qalbigaagu sii jeedsado oo meel kale aad egeegto laakiin waxaad ogaataa inaad ilaahaaga la faqayso oo aad la sheekaysanayso kolka aad akhriyayso faatixada amaba salaadii aad ku jirto ee aadan la cibaadaysanayso haddii aynu usoo noqonno tafsiirka suuradda alla waxau ihi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaaha caalamiinta oo dhan iska leh ayaa mahadle dhinac waxay ka tahay ilaahay oo naftiisa ammaanay dhinacna waxay ka tahay isagoo ina baraya oo la quulu alxamdu lilah waxaad tidhaahdaan ilaahayow adiga ayaa mahadle dhowr suuradood oo qur'aanka kariimkaa ka mid ah oo ku bilaabma erayga alxamdu lilah oo iyaguwa ah tacliimin ilaahay uuna barayo ammaantiisa ayay suuradda ugu horraysaa suuraddan iyo suuratu lancaam suuratu lkahfi suuratu saba iyo suuratu faadir shantaas suuradood ba alxamdu lilaahi baa u horreeya ashu had iyo jeer xagga luqada carabiga haddii erey loo horraysiiye xarafka al ah macnuun buu faa'iideeyaa marka macnahay faa'iidaynaysaa iminka waxa weeye kullu alxamdu lilah mahad oo dhan ilaahay baa iska leh mahadda ilaahay si toosa loo mahadiyo garan ee la yidhaahdo alxamdu lilah haddii qof si gaara loo mahadiyo macruuf iyo sameeyey maxay noqonaysaa isagana yaanu qofkaas si gaar u lahayn iyada qudhigeeda mahadda aad cid gaara mahadisaana ilaahay unbay u noqonaysaa waayo qofkani waa qof la farsameeyo ilaahay baa sameeyey markaa sidan lagu ammaanay ee qofkan lagu mahadiyey ilaahay u sameeyey baa kusii ammaanan tabaaraka wa tacaala alxamdu lilah ilaahay waa rabbulcaalamiin caalamiinta dhan isaga ayaa iska leh marka alcaalamiin waxaa fasiraysa aayad kale nebi muuse ayaa iyo haaruun walaalkii haaruun labadoodaasoo wada socdaa ilaahay u tiray fircoona way u tegeen markii ay isu sharxayeen waxa ay yihiin iyo cidda soo dirtay waxay xuseen inuu ilaahay soo diray rabbulcaalamiin qaala fircawn wamaa rabbulcaalamiin qaala rabbu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin fircoon baa soo booday oo laabta garaaco waxa uu leeyahay war rabbulcaalamiinkaas sheegtay muxuu ahaa anigaaba ka rabbiya meesha kolkaasay u jawaabeen oo waxay yidhahdeen waa rabbiga iskale samooyinka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysa iyo waxa ku dhex jiro o dhan wey marka alcaalamiin waxaad arkaysaa makhluuqaadkao dhan inay yihiin waa ninkii shaacirka ahaa gabyayey ibnulmuctaz baa waxau lahaa fayaa cajaban kayfa yacsi lilaah am kayfa yajxaduhu ljaaxid wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu aad buu layaab u leeyahay buu leeyahay qofka ilaahay caasiyaya ama diidaya siday taasi uga suuro gelaysa iyadoo shay waliba uu leeyahay astaan iyo aayad tusinaysa ilaahay inuu keli yahay alraxmaan araxiim ilaahay waa ilaaha raxmaanka ah ee raxiimka labada sifaba isagaa iska leh marka raxmaan weeyo nicmadiisa adduunyada gaal iyo islaamba uu siiyey ama raxmaan waa ilaha nicmooyinka waaweyn bixiya raxiimna waa ilaha nicmooyinka yareere addoonka ka qabsoon bixiya ee markaa aan u muuqanayn ama raxiim waa ilaha awliyadiisa ku gaar yeelay naxariista maalinka qiyaamaha wa kaana bilmu'miniina raxiima marka raxmaan ilaahay unbaa lagu sifeeya laakiin raxiim makhluuqa qaarkood waa laga yaabaa in lagu sifeeyo siduu ilaahayba nebiga ugu tilmaamay ra'uufun raxiim laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim
dadka mu'miniinta abu aad ugu naxariisanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam maaliki yawmiddiin maalinka qiyaamaha ilaahay baa iska leh ilaahay waa ilaaha maalinka abaalmarinta isagu iska leh oo imikaba ilaahay maalmahana isagaa leh dadkana isagaa leh cid walba isagaa leh haddana ilaahay si gaara maalinka qiyaamaha wuxuu yidhi anigaa leh macnaheedu waxa weeye maanta dad baa wax sheegta dawladaa wax sheegta shakhsiyaad baa wax sheegto qofku wuxuu leeyahy waa waxaygii laakiin maalinkaa cidiba wax sheegan maysaba allah maalinkaa hadlaya waxa uu leeyahy liman ilmulku lyawm maanta yaa wax leh cidi markay jawaabi weydo ayaa waxa uu leeyahy lilaahi alwaaxid alqahaar ilaaha awoodda dhammayska tiran leh isagu wax tirqiya ayuunbaa maanta wax iskale cid ka wax sheeganaysaa ma jiro almulku yawmaidin alxaq liraxmaan maalinkaasi ilaahay baa iska lehoo maamulkiisu dhammaystiran yahay marka ilaahay adduun iyo aakhiraba waa kale tasarufka dhammayska tiran isagu leh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adigaanu gargaar kaa doonayna adigaanu ku caabudayna adigaanaanu gargaar kaa doonayna marka intay addoonkiiyo ilaahay bay u qaybsan tahay ilaahay xaquu leeyahay waa cibaadada addoonkuna xaquu leeyahay waxa weye markuu ilaahay caabudo inuu ilaahay siiyo wuxuu doonayo erayga sidaad arkaysa iyaaka oo la horumariyey labada meeloodba waxa weeye uu faa'iidaynaya xaq ilaahu adoo keliya adigoo keliya wax kaloo kula caabudayaa ma jiro nacbudu iyo nastaciinu haddii aad u fiirsato waxa horeeya nacbudu nastaciinuna way dambaysaa taa macnaha laga faa'iidaya waxa ay leeyihiin culimadu waxa weeye ilaahay isticaano iyo waxaynu ka doonaynaa gargaar marka haddaba aynu cibaadadiisa iyo waxa uu ina fara yeelno ayaynu rabbigeen ka helaynaa waxa uu inoo ballan qaaday ee adigoo ilaahay ku gacan sayday kama helaysid waxaad doonaysa inuu naxariistiisa kugu siiyo mooyaane marka ilaahay baynu u hoggaansamaynaa sidaa daraaddeed baa wixii aynu ka doonayna inaynu ka helayna nacbudu iyo nastaciinu labaduba hab jamac bay u socdaan marka macnaheedu waxa weeye cibaadadu waxay ku fiican tahay jamaca oo aynu ku caabudayna ihdina siraada almustaqiim ilaahay jidka toosan nagu hanuuni marka jidka toosan waa islaam waayo jid kale oo la maro oo maqsuudkaaga iyo ujeeddadaad leedahay aad ku gaari karaysaa ma jiro ujeeddadu qofku leeyahay waxa weeye inuu nasto oo uu raaxaysto ilaahay raalli noqoshiisa iyo jannadiisana uu gaadho marka jidkaa toosan in badan baa qur'aanku uu ku soo celceliyaa oo aynu ku arki doonaa allah waxa uu tilmaamay markaas jidkaa toosan in uu yahay runtii ka dadka saalixiinta ahay mareen kolkaasaa waxa uu yihi siraata aladiina ancamta calayhim dadkaad u nicmaysay jidkoodii ilaahay una mari kuwa ilaahay u nicmeeyeyna qur'aanka kariimka ah ayaa ilaahay uu ku xusay waa dadka wan wanaagsan fiican ee ambiyada saalixiinta shuhadada iyo kuwa runta badan kuwaasay ka koobayn waman yudic illaha warasuul ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلهي رسولك عدة أطيعنا waxa ay kuwaasi u helinayaan kuwa ilaahay u nicmeeyey ambiyadii iyo kuwii runta badnaa iyo shuhadadii iyo saalixiintii kuwa lala rafiiqo kuwaasaa u wanaagsan marka ilaahay baynu baryaynaa oo inuu inagu hanuuniyo kuwa jidkooda ina bariyo waa duca aynu ducaysanayno غayr almawduubi calayhim kuwii loo cadhooday aan ahayn kuwa loo cadhooday waa yuhuudda ilaahay nacdal buu dusha uga tuuray markii